arinta ugu horeyso aan ka bilawnay waxay ahayd dadka xaasaska ka maqan yihiin waxay qaadan jirtay 3 sano 5 sano iyo baarlamaanka dalka Canada ayaa ku ansixiyay qorshe dalkaasi oo magangeliyo ku siinayo in ka badan 1 milyan oo qof 3 sano ee soo socota taas oo dhigan boqolkiiba hal dadka degan dalka Canada go'aanka dawladda Canada ee lagu soo dhaweynaya dadka soo galootiga ah ayaa ku soo beegmay xilli dalal badan oo reer galbeed ah oo Mareykanku ka mid yahay ay soo rogeen siyaasado qalafsan oo lagu xakameynayo dadka soo galootiga ah laanta hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay xuquuqda dadka qaxoontiga uu gaaray heerarkii ugu sareeyay waxaana xusid mudan in wasaaradda socdaalka iyo arrimaha qaxoontiga ee dalka Canada oo gacan ka geysanaysa arrimaha qaxoontiga ayaa ballan qaaday in ay ku deeqiso $5.6 milyan oo lagu talagalay dib u dejinta dadka qaxoontiga ah dawladda Canada ayaa ka fiirsanaysa in ay wax ka bedesho nidaamka aqbalida dadka soo galootiga ah waxaana bisha November lagu wadaa in tiro badan ay ogolaansho u helaan ku noolaanshaha gudaha dalkaas wasiirka soo galootiga John McCallum oo ka hadlayay shir baarlamaanka Canada ay yeesheen arrinta qaxoontiga ayaa sheegay in xubno badan oo dawladda ka tirsan ay soo jeediyeen in qaxoontiga si gooni ah loola tacaalo dhammaan dadkii aan la hadlay waxay u codeeyeen in qaxoontiga soo galaya dalka la kordhiyo haba kala duwanaadaan sababta ay u kala imanayaan balse dawladdu ma shaacin doonto go'aankeeda arrinta ku aadan ilaa iyo bisha November ayuu yiri McCallum oo la hadlayay warbaahinta Canada waxay 3 group bay albaabada u furtay groupka koowaad waa qaxootiga groupka labaad waa qoysaska la isku keenay groupka saddexaadna waxa la economic immigration waa dadka maskaxdooda iyo khibradooda loo keenayo qorshaha dawladda ee sanadkan ayaa hoosta ka xariiqaya in waddanka deganaansha ay ka helaan 300,000 oo qof oo soo galooti ah oo ay ku jiraan 80,000 oo qof oo lagu wado inay dib ula midoobaan qoysaskooda oo ku nool Canada tirada waxa ku jira 57,000 oo qof oo qaxoonti ah dadka shaqo raadiska u yimi Canada waxa 20 sano ee ugu dambeysay Canada soo gaarayay ka badan intii la filayay kuwaasi oo siyaabo kala duwan u yimi haddaba sanadkii 2014 Canada ayaa aqbashay qaxoonti dhan 260,000 oo qof kuwaasi oo boqolkiiba 7 ah bulshada guud ee Canada waxaana xog ururin laga sameeyay Canada ay soo jeedisay in dawladdu ay sanadka 2020 ka qaadato tiro ka yar inta la hadal hayo halka boqolkiiba 16 ay soo jeediyeen in tirada qaxoontiga ah la kordhiyo haddaba ugu dambeyn wasiirka ayaa ballan qaaday in la shaacin doono wax ka بدل lagu sameeyay qorshaha kumeel gaar ah oo lagu la dhaqmo ajaanibta ka shaqeysta gudaha dalkaasi waxaana uu tilmaamay in ay sugayaan warbixin ay dawladdu sii deyn doonto oo la xiriirta barnaamijka dadka muhaajiriinta